Asalaamu calaykum waraxmatullaahi saaxiibayaal. Qaybtan waa qaybtii shanaad ee ku saabsanayd dhisidda website ama blogger website ama sida loo dhisto blogger website. Muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa sida loo samaysto categories ama labels waxa la yiraahdo. Categories ama labels waxa la yiraahdo ayaynu kaga hadli doonaa sida loo samaysto. Markaad u baahan tahay categories ama horta categories iyo labels maxay yihiin? Categories ama labels waxaad maqashid halka website-keena haddaynu nimaadno website-keena u soo galno sida official-ka ah oo inuu xagga sare ka soo galno view blog niraahno. Haddii aad maqashid categories ama labels markaad postiga soo gashid aad soo soo dhufato xaggan hoose waxa ka soo muuqan doona meeshan ay ku qoran tahay labels ayaa labels ama labels la yiraahdaa ama categories baa la yiraahdaa. Marka qaar categories ayaa ku qoran kulka labeladan ama category-yadani macnaheedu waxay ka turjuman yihiin page-ka marka ku soo dhufato page-yadan sidii loo hoos geynayo waxaad imka kale ciyaaraad ka hadlaysaa qaybta ciyaaraha inaad ciyaaro kaliya taad ku label gareyso ayaa loo baahan yahay. Qaybta madadaalooyinka inaad madadaalooyinka kaliya ku label gareyso loo baahan yahay. Qaybta wararka inaad wararka kaliya ku label gareyso loo baahan yahay. Marka wararka lagu soo dhufto wixii wararka ku saabsan inay soo baxaan baa loo baahan yahay. Halka ciyaaraha marka lagu dhuftana loo baahan yahay inay soo baxdo wixii ciyaaraha ku saabsanaa. Marka sidii la isugu label gareyn lahaa aynu fiidiyogan ama muuqaalkan kaga hadlanaa insha Allah. Okay, waxaad imanaysaa marka horeysa website-kaaga si toos ah ugu soo noqo qaybta qaybta laga edit gareeyo website-kaaga. Markaad timaado xaggan waxaad ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay post ba marka hore ku dhufanaysaa postiyada waa khasab inaad marka hore soo gelisaa postiyada aynu soo post kale aynu soo gelin mid hore ayay noogu jiray laakiin post kale ayaan hadda ku soo daranaa. Waxaan soo gelin doonaa mid ciyaaraha ah iyo mid madadaalo ah iyo mid kale oo isaguna ah kii hore warka aynu soo gelinay post cusub aynu soo gelinaynaa. Okay, post baad ku soo dhufanaysaa calaamadan hoose plus taad ku dhufanaysaa kadib hadda war ku saabsan xag ciyaaraha ayaan soo gelinayaa. Waxaan oranayaa ciyaarta maanta waana ku qoray qoraalka ayaan horreysay article-ka marka hore qoraysaa xaggan title-kana waa sax loo horreysay title-ka inuu qori lahayn laakiin waa dib ma laha kolba kaad jeceshahay horreysinaysaa. waxa ku qorayaan ciyaarta maanta ka dhacaysa garoonka Man United ayaa la saadaalinayaa inay noqoto mid xiiso leh ayaa ku qoran kolka ciyaartaadu ka hadlaysaa ciyaarta ama ciyaaraha kaga hadlayso website-kaaga waxaad ku qoraysaa ciyaarta maanta soo dhacaysa iyo waxay ka hadlayso iyo waxaad qoraysaa. haddaan kusoo noqon xagga title-ka waxaan qorayaa title-ka ayaan u sameynayaa ciyaarta maanta ayaan tusaale kale qorayaa ciyaarta tusaale waxaan qorayaa ciyaarta ka dhacaysa title-ka waan qoray waan ku qorayaa ciyaarta maanta ka dhacaysa Man United garoonkeeda ayaa ku qoray magaca. Title-ku waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee soo jiidashada sameeya. Marka waa title qurux badan aad qortaa hadda kan waa tusaalayaal aniga soo gaagabsaday ma si doonay fiidiyoyada si dheeraadaan. marka soo qortid waxaad ku dhufanaysaa xagga sida horteeda imo halka ciyaarta horteeda soo soo dhufo hadii space ku jiro hadda iska yar jar saas ku leegaadaan. marka halka timaadid waxaad ku dhufataa halkan ay ku qoran tahay falaadhan hoos jeeda ama enter. marka saamar soo soo dhufatid kadib xagga sare taabo halka aad ka soo guurtay marka sida ka horeysa meesha ka sareysa gee ama soo riix ama taabo halka marka timaadid kadib sawirka soo gasho sawirada hal sawir oo kaliya lama soo gasho 3 4 5 waad soo gashan kartaa markaad qoraalka article-ka kala dhexdiisa soo gelgeliyaa. laakiin hadda saa postiyada loo soo geliyo ee loo label gareeyo ama category loogu sameeyo aynu ka hadlanaa. upload baad ku soo dhufanaysaa kadib waxaad soo dooranaysaa sawirkii ciyaarta aad ka hadlaysay. sawirka ayaan soo gashanayaa sawirka markaad soo doorato sawir aan copyright lahayn ayaad soo gashanaysaa oo xuquuqdiisa adiga aad iska leedahay. hadda sawirka waa soo geliyay kolka aad sawirka ciyaarta xilligaas soo dhacaysay waxa waa soo gelisaa ama waa inaad sawir kale u qalma markaas aad soo gelisaa.
kadib marka halka la marayo intaanad post odhan sidaynu category ama labelska aynu u samayno halkan ayaad ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay calaamadda yar geerka kadib meeshan labels ku qoran tahay hoosteedana ayaad imanaysaa halkaas bread ku qoran dusheeda ayaad taabanaysaa kadib hore waxay noogu samaysnaa label ahaa ama category ahayd wararka kan waxaan ku qoraynaa ciyaaraha ayaan ku qoraynaa ciyaaraha markaan ciyaaraha saa ugu qorno kadib crosska baan iska saaranaa marka crosska saa u saarno hadda publish ayaan odhananaa ama publish ayaan odhananaa confirm ayaan odhananaa hadda waa naloo soo geliyey postigii hore waa ku jira kii labaadna hadda waa lasoo geliyey oo waan arkanaaba posti saddexaad ayaynu soo gashananaa si aynu leebelada aynu u habayno xaggan balastaan imananaa marka soo gashado okay hadda sawirkiisan ayuu soo galay kadib waxaan taabanayaa meesha yar ay ku qoran tahay aesthetic oo kale calaamadeedu kadib haddana levelkan ayaan imanayaa waa nidaamyada categoriga lagu sameeyo categoriyadii oo inaga hadda samaynay waa labels ama categories waxa la yidhahdo mid ciyaara ayaa jiray iyo mid wararka ah kolkaa mar walba way kuusii ooli doonaa meeshan marka saalood wax ciyaaraha soo geliso ciyaaraha doonan doonta marka saalo wax warara soo geliso wararka halkaa gelin doontaa hadda kan waxaan odhanaa madadaalo ayaan odhananaa okay hadda bullish baan odhananaa confirm saddex posti ayaan soo gelinay saddexdan posti waxaan doonaynaa haddaba inay kasoo muuqdaan page-keena oo haddaan halkan ku dhufano imika ama aynu view blog kusoo dhufano waxaad arkaysaa kadib kusoo dhufo si uu update u qaato wariyo dushiisa halkaa ku dhufo marka halkan ku dhufatid haddaan wararka maanta ku dhufto halkay wararka maanta ku qoran tahay waxba ima soo saarayo weli page-kii wuu caadi yahay waana waxaan qurux badnayn mar walba soo ahaado kan haddaan ku dhufto ciyaaraha weli waxa kama muuqdaan casharkan ayaa muhiimadiisu waxay tahay sida loo hoosgeeyo ama lasugu beego wixii ciyaaraha ah inaad ciyaaraha hoosgeyso wixii aan madadaalo inaad madadaalo hoosgeyso okay marka halkaa marayso waxaad kusoo noqotaa qeybtaada hore ee ku furnayd kadib waxaad timaadaa postigii dushiisa imo imika tusaale postigan oo kale dushiisa imo markaad dushiisa timaado waxaad ku dhufataa saddexda ilig markaad ku dhufato waxaad ku dhufataa qeybta ku qoran tahay view kadib markaad view kusoo dhufato hoos usoo deg waxaan waan ka dhex qaadi doonaa meesha waa iyadana qeybta editka teamkeena weli ka maqan tahay meeshan ay labelski kugu qoriyo waa kuwana si aan usoo qaadano labelka ciyaaraha kusoo dhufo kadib waxaad soo qaadataa url-ka xaggaa sare ku dhufo ay ku qoran tahay magacaagu ama url-kaaga ku dul dhufo kadib markasan kugu soo baxdo waxaad ku dhufataa calaamadda yar isdul saaran ee koobiga ah samar kusoo dhufato san ayuu kugu soo baxaya inaad koobiyeyso ayuu kuu sheegaya hal mar tan backta ee lagaga noqday hoose taabo kadib waxaad timaadaa meeshan ku qoran tahay xaggii hore ama xaggii website-kaaga laga dhisan galinay kadib soo imo meeshii saddexda iliga sare kadib waxaad timaadaa meesha layout ku qoran tahay kadib waxaad timaadaa xaggan bidixda u jiid menuda kaale oo halkaynu ka sameynay ah main menuda meesha ku qoran tahay kadib waxaad soo doorataa meesha ay ku qoran tahay ciyaaraha oo halkana soo dooro ciyaarahaad soo dooranaysaa labelka ciyaaraha ee koobigiisa sidatay kadib korbaad u yarjiidaysaa meeshan ku qoran tahay https ayaad masaxaysaa gebigeedaba kadibnaad u xijinaysaa kadib basti baad kusoo dhufanaysaa kadibna safe baad odhanaysaa kadibna safe mar kale odhanaysaa hadda ka ciyaaraha waa ku safe gareynay bal aynu tijaabino xaggan kaale view blog kusoo dhufo markaad view blog kusoo dhufato kan ay ku qoran tahay ciyaaraha kaale hadda waxaa ka muuqda postigan soo gelinay ciyaaraha ciyaarta aynu ka hadlanay ayaa ka muuqata qeybta ciyaaraha oo marka san website-kaaga loo soo galo ee lagu soo dhufto ciyaaraha waxaa kasoo muuqata kii ciyaaraha labada kale soo hadhaynaysa aynu usoo gelino waxay ku noqonaa saddexda ilig kadib postigaad kusoo noqonaysaa kadibna madadaalada ku dhufano kadibna view nidhaahno kadib aynu kusoo dhufano meesha ku qoran tahay madadaalo meesha dhexay madadaalo ku qoran tahay nimaadno
kadib sana ay noogu soo baxdo waxaan sameynaynaa xagga yarsaarka kusoo dulfaarka ay ku qoranta blog post kadibna halkan ku dhufo kadib hal mar ka noqo kusoo noqo qaybtaada sare layout kaalay kadib marka timaado layout waxaad sameysaa main menu kusoo noqo main menu marka kusoo noqoto madadaalin inuu baahnayn qalinka yar ku dhufo kadib waxaad ku dhufataa qalinka marka ku dhufatay waxa iska masaxo ku jiray markaad iska masaxdo kadibna xaji korkiisa pastiga sare ku soo baxa ku dhufo save de kadibna save hadda saddexdiiba waan ku save gareynaa waxaanu eegnaa website-keena inuu hadaba shaqeynayo hadda page-kiisu weriyada ku dhufaba si page-kiisu guud aad u timaado okay hadda waxaan doonaynaa in kolba keen dul tagno inuu noo soo baxo saddexda falaadho hadda ku dhuftay isa saaran haddaan wararka ku dhufto waan wararka maanta ii soo baxay wixii aan ku jiray wararkii baa ii soo baxay haddaan ku dhufto ciyaaraha wixii ku saabsan ciyaaraha ama postiga ciyaaraha ii soo baxaya haddaan madadaalo taabtana wixii madadaalada ayaa soo geliyay isaguna soo baxaya oo isaguna waa sawirka qarsoon laakiin waa sax waa saas ayaad u samaysanaysaa labelska inuu fiidiyowga sii dheeraado ma jecli assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh